maalma ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeenka laba website oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoonay iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30 maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo oo tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinna laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walazima walmusabara midi waa hansare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xoogiisa arkaa bay yiraahdaan waxa laga yaabaa wali inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa quraanka 30 maalmood saad ugu qaybaysaa inay mas'alo riyaa tahay waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete san ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay beejka quraana imsaad ku qaybi kartaa beej quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani waa imise page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray يعني مصحف كان إنه آخرنا نبى قعنتي سكو قري مطبعة دي وحماها نبى قعنتي سكو قري عثمان طه كتاب كان قري وحوسه ما يسيء قابة شنية طبعا صدر بيت كستابين وككوبين هي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوا اللي بلا باتم بيتشينو يهي مركا لقى الرئيوي جسك كوادة فاتحة دي انتن لقرحيي كاسوا كوبيا لباتم بيتش marka laga tagay isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 3 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu idhaahna 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqadii badh soocanka ma page-ka waxaad akhrii kartaa daqiiqadii badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya page-kii wuxuu akhrii karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhrii karaa sadar imsaad ku xifdii kartaa markaad imsa jeer ku celiso hal sadar مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمي سجور مركز أخرجات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أنت صدر إلا لم يلد إمي ساتكو غيبيس مركز إمي سجور أخرجات مر لبا صدح أفر شن لح تضوى سيدة إمي ساتكو غيب كريس هدي عن هذا مثلا
shan jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarkaa markaad akhrido 15 sadar imisaad ku akhriyaysaa marka yacni sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha bejkii minute iyo badh baad ku akhriyaysay minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay bejkaa 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nuso saaci bejkaa 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nuso saaci wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahdo buu yidhi 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muxaawalee 8 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan 12 daqiiqadood baa bejka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay yidhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddaad bejkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo bejka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nus saac akhri qur-aanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto 60 loo qaybiyo waa imisa waa 5 bej dad min saacad kasta 5 bej baad qaybi kartaa haddaad 5 intaa ku dhufato waa 22 bej iyo badh macnaheedu waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 bej labada bej iyo badhka tuur 20 bej waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan 27 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxana iska xisaabaad sheegtay sheekhe practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ahayn aan hadda jooga haddaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fii anfusikum afala tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقلي سوحو قاضي وح عجز قليي ملائكته آدم عقليسو waxa uu qaaday maxay sa quraanku tilmaamayo wax ajsi galiyay malaa'ikta ba aadan aqligiisu qaaday si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay haddii aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa cul hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira maalma ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeenka laba website oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoonay iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraankii aad taqaanay 30 malaal laguma qaybo 30 maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo oo tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi والهمة والعزيمة والمثابرة مدوا هنصر وقوان أدق وطه هنكو وقفكو إنو هن وينادو هداد هن يرتهي وحويا وعقال شداتي لها محي علهرتي شباي علهرتي بات شبايسا هداد هن يرتهي معناه دو حويا هداد وحبابا يسكو دين أيات شبايسا لكن قفكو مركو هن وين يهي
oo caziimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xooggiisa arkaa bay yiraahdaan waxa laga yaabaa wali inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa quraanka